بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل كستا قوب كستا يا حرم كستا وموقعي ودين كسو غاريبا halkan waa muqbaahiyaha taariikhda fog ee Space Channel TV kuna soo dhawaada war waxaan idinka haynay dalka gudihiisa iyo dacallada caalamka oo dabcan idinka imanaya xarunta telefishanku ku leeyahay magaalada Hargeysa haddii ay baydmar warka waxa idin la socodsiin doonaa anigu Khalid Bulshaawiya marka hore soo qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaayo iyo wafdu hogaaminayo ayaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdalka ka qayb galay munaasabad qalin jabin oo loo sameeyay ardayda sanadkan dhameysatay jaamacadda Facaweyn ee Camuud barasaabkii hore ee gobolka Soob Mustafa Cabdi Shiine oo isku shaandhayntii ugu dambeysay madaxweyne Silaayo u bedelay gobolka Awdal ayaa maanta mar waraysi gaarsiinayay Space Channel TV waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan bedelaadaasi isagoo sidoo kale ka warbixiyay qorshaha cusub ee ugu wajihi doono gobolkaasi Awdal dadweynaha ku nool magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay isku shaandhayntii madaxweyne Silaayo ku sameeyay xukuumaddiisa munaasabad ballaaran oo taageero loogu muujinayay xisbiga talada dalka ee kulmiye iyo sidoo kale musharaxa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa ee xisbigaasi ayaa lagu qabtay magaalada Caynaba dadweynaha ku nool magaalada Gabiley ayaa soo dhaweeyay isku shaandhayntii madaxweyne Silaayo uu ku sameeyay xubnaha kala duwan ee xukuumaddiisa maxaabiistii ugu badnayd ayaa laga sii daayay xabsiga Guantanamo ee dalka Mareykanka intii uu madaxweyne Obama talada dalkaasi hayay daawadayaal kuwaas waxay ahaayeen qodobadii aan doorkii wararkeena caawa ugu waaweynaa imakii haatan u diyaar garooba iyagii oo fidsan barasaabkii hore ee gobolka Soob Mustafa Cabdi Shiine oo isku shaandhayntii ugu dambeysay madaxweyne Silaayo u bedelay gobolka Awdal ayaa maanta mar waraysi gaarsiinayay Space Channel TV waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan bedelaadaasi isagoo sidoo kale ka warbixiyay qorshaha cusub ee ugu wajihi doono gobolkaasi Awdal ورينا محمد إسماعيل سلام أي وربحنتاسين ودياريين مصطفى عبد الشينا برصاب كي هوري قبل كسول مالنتي شلaya هايدي مدحوينه أحمد محمود سيلايو oo magacaabay barsaabka cusub ee gobolka Awdal ayaa maanta ka dareenceliyay dareenkiisa ku wajahan magacaabistaasi oo madaxweyne Silaayo u soo bedelay gobolka Awdal waxaana Mustafa Cabdi Shiine oo dhambaal hambalyo u diray madaxweyne Axmed Maxamed Silaayo dadkaba waa sunnada dowladnimo in madaxweyne وانا واجب دستوري او سيقول او دستور كوسيي انه عيدو دوران مغعاو عيدو دوران خيلكا قادو عيدو واركينا ميل كل كوابون كانو بدلو marka anigu markasta waan soo dhaweynaa madaxweyne xilka uu magacaabo waayo aniga sharaf ay tahay inaan ka mid noqdo markasta isbedelada madaxweynaha uu sameeyay inaan ka mid noqdo mas'uuliyiinta ku fadhida magaciisa xeerar ku fadhida warqadiisa sharafna runtii waxay noo tahay haddaan anagu nahay qolyaha balasaabada ama gudoomiyaasha gobolada waxaan inta badan qabanaa shaqooyin isku mid ah sidaa daraadeed waxaa qofku balasaabkii uu kororsadaa aqoonta bulshada iyo deegaanka markaan Gabiley 2 sano ku dhawaad baan joogay hadda laasaanood 6 bilood baan joogaa iminkana Boorame iyadoo waqtiga xukuumadda aan ka tirsanay muddo gaaban ka dhacay inaan tago runtii aan aad baan soo dhaweynay sababta waxaan soo dhaweynaa waxa haddana waxaan baran doonaa in kasta aan Boorame dadka degan iyo qalaqaano deegaamada iyo dad ahaan aad u qalaqaan haddana lama shaqeyn maanta markaan hadda la shaqeeyo dhalinyaradi dumarkii waayeelkii salaadiintii uqaashi haddana dad cusub iyo bulsho cusub iyo aragtiyo cusub oo kale ayaa haddana soo ogaanaya labada gobol ka soo shaqeynay maanta waxaan maleeyaa kaga tagay markasta sharaf gobolka Gabiley markaan ka tagay wada weeday maanta xilka wareejinay dadku sidoo igu hameeyay maanta si la mid ah maleeyaa laasaanood anu muddo yar ayaan joogay laasaanood muddada runtii waxaan rajeynayaa in intii aan ka qaban karay aan ka qabto markaan soo dhaweynay xilka madaxweynaha magacaabo gudoomiye gobolkii imka laga soo bedelay shaqooyin baa muddooyinka ugu dambeeyay ka dhacay taasoo tallaabo la taaban karo aad ka qaadatay gobolkan hadda lagu bedelay waxa sida laga wada warqababa jira maleeshiyada hogaaminaya Suudaan wabar in which noocay adigu barasaab ahaan aad
كوجي دوتا والله أنا مركز وجه نبضات بنقول جاية وجه نبضات وجه ولا هذا أنا مركز أنا عبها على ما أنا بومبونية لا صعبة وقدر مركز تيجي حالة ساعد مرنا ورحين على عدد كمان كين بعدين كين واحد ودوين يوم حلال أو تدخل وحلا تصه الدولة أيضا ضدك هو جام سواء ورحين تضايق ما أنت نتنص غير أفضل روتي وهلك سمعنا على غير شيء وأنا ما أنت قبل كلا ضدك هو قاطع بدل بتشوفه سومالان ما أنت الدولة أساسا من لو يعدي لا هلك ذاك إنسان لا سعنود يهلك لا سكوري يدار نواجه عند مركز أفكار كدول أفكار أنت بدنا قبتي سومالان لماذا من سنوات عند مركز توجه مركز أنت أسي waxay ku kala duwanahay muhiim ah laakiin waxaan isku mid ka nahay ayaan mar walba anigu culays saaraya culays waxaan saaraya waxa weeye inta maartaan isku mid ka nahay waa horumarka iyo nabadgelyada in la ilaashado marka arrinta reer awdal ama ninka aad sheegtay Suudaanka Weber waxaan anigu wajhi doona qaab nabadeed iyo qaab hadal jeelay waa Maxamed Ismaaciil Salaan Somaliland Space Channel magaalada Hargeysa munaasabad ballaaran oo taageero loogu muujinayay xisbiga talada dalka ee kulmiye iyo sidoo kale musharaxa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa xisbigaasi ayaa lagu qabtay magaalada Caynaba munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayrici ayaa habeennimadii xalay ka qabsoontay hoteelka caalamiga ee Caynaba munaasabadani oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaana ay yartus qabatay ayaa waxaa soo qabanqaabiyay dhalinyarada gobolka Saraar waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax meeyirka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf saraakiisha amniga uqaal waxgar mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka iyo dhalinyarada qabatay xafladan oo soo buuxdhaafisay goobtii munaasabadu ka dhacaysay waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah dhalinyaradii soo qabanqaabisay munaasabadani waxayna sheegeen in dhalinyarada gobolka Saraar si mug iyo miisaan loo taageersan yihiin murashaxiinta xisbiga kulmiye anigu ah gudoomiyaha qabanqaabada xafladan haddii ay tihiin dhalinyarada gobolka Saraar mid waynu ka midaysana inteena halkan joogta inta idinka waxa inaga go'an oo meel laga taala waxa inoo ballana taageeridda xisbiga kulmiye iyo musharaxa xisbiga kulmiye mudana Muuse Biixi Cabdi mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan hambalyeeynaa musharaxa Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay gobolka Saraar waanu kuugu sii gobol xaadhaynaa roog casbaan ku dhigaynaa wacdaraan na tirso sida ariga loo tirsado noo tirsan leena dan Saraar raay anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada degmada Oog gaar ahaan degmada Oog waxaan halkan ka taageeraynaa labada musharax ee xisbiga kulmiye u taagan imaka mudana Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici aan halkan uga muujinayno taageerada dhalinyarada gobolka ay hayso labada musharax waxaanu nahay heer guuraaguna laba awr rartaa labada awr oo rartaa midna gurgurshaaba la yiraahdaa midna layli warnikada layli haaniisa maanta saaraya waa su'aal waxa weeye awrka gurgurshaaga waynu garanaynaa macnaha uu ku fadhiyo xisbigana waa xisbi gurgurshaaya wax kastoo la saaraa xisbiga iyana ka dhicin baynu leenahay horena dhalinyartu dawayo ahayd xisbiga haddana iyadoo la isku duuban yahay ayaa taageero loo muujinayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale waxaan hambalyo u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo guud ahaanba bahweynta reer kulmiye oo u horeeyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo ku-xigeenkiisa waxaan u maleynayaa Muuse Biixi inuu sidaa imika ku noqon doono madaxweynaha dalka oo waxba kama xigaan inta madaxweynuhu u banaynayo meesha ayaa ka xigan u maleynayaa geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee gobolka Saraar Axmed Warsame Caraare xogayaha xisbiga kulmiye ee gobolka Cabdicasiis Salabaan Baashe waxayna si weyn u soo dhaweeyeen dhalinyarada taageerada u muujiyay murashaxiinta xisbiga kulmiye anigoo ku hadlaya afkii xisbiga kulmiye taageeradiina mugga iyo miisaan kale horena ugu codayseen haddeer ku siiseen musharaxiinta cusub ee aanu keenay khaasatan musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maadaama aan anigu heer gobol ku joogno aniga ayaa idinka aqbalay waa ku mahadsantihiin waa idinku soo dhaweynaynaa waa idinka aqbalay aniga oo ku hadlaya afkii gudoomiyaha
سعيد جامع بوت تقول أنا هاي قدوميها حقيقة عادي يكون ما حد قينا سيدا شرفت له أما إذا كجارسين إنه والله يمن دونا حسبه هو يمن دونا. ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Saraar Ani Maxamed Faarac iyo maayirka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf waxaana hadaladoodii kamid ahaa aad iyo aad baan xafladda nagu soo casuunteen ee qiimaha iyo qaayaha badan idinka mahad celinayna taa ka bacdi waxayna ku soo aadan oo 23 bisha aynu ku jirno ee halka way ka haray diiwaangelintii oo ka bilaabmaysa gobolkeena taa waxaa la idinka rabaa dhalinyaradiinaasi inaad dadka u baxdaan oo markaad isdiiwaangelisaan idinku xoolaha u baxdaan waxa midan sharaf dhalinyarada inagu soo maxsuuntay yacni fikirkooga amba taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye sharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo hiigsi wanaagsan iyo himilo wanaagsan ku wada socota dhalinyaro doonaysa inay taageero buuxda siiyaan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda talada haysa waxaad ka dhawaajiseen inay tahay xukuumaddani maanta xukuumaddii dhalinyarada waa dadweynaha ku nool magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay isku shaandhayntii madaxweyne Silaayo ku sameeyay xukuumaddiisa. dadweynaha ku dhaqan gobolka Saaxil ayaa si weyn u soo dhaweeyay isku shaandhayntii uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Silaayo ku sameeyay xukuumaddiisa waana isku shaandhayntii ugu miisaanka cuslay tan iyo intii uu xukuumadda madaxweyne Silaayo talada dalka haysay shaandhayntan oo ay si weyn uga dhex muuqdaan beelaha bariga Soomaaliland oo loo dhiibay xilal culus waxa iyaguna dareenkooda ka dhiibtay isku shaandhayntaasi madaxweynaha mas'uuliyiin xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada waxaana ka mid ah hadaloodii sida tan isbedelka ballaaran ee ku sameysay xukuumaddu golaheeda wasiirada iyo hay'adaha madax bannaan gaar ahaan xilalka loo magacaabay beesha dhulbaxante oo wada hadal ballaaran ugu socday xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay xukuumadda cid kasta wax qabanaysa ama cid kasta oo reer Soomaaliland oo dareen tabasho ku jiro in ay si gaar ah u eegto anigoo ku hadlaya magacayga oo ah Faysal Cabdi Xasan ganacsade Berbera aad baan ugu hambalyeynaa madaxweynaha maadaama ay tahay mas'uuliyadiisu inuu cidna bedelo cid cusubna keeno kuwii hore waxaan leenahay shaqo wacan baa soo qabatay waa ku mahadsantiin kuwan dambe maanta la soo magacaabay waxaan leenahay waa xil culus Allah idin fudaydiyo waxa kalena Allah idin ka baryanaa inuu gudataan siday tahay oo sinaan iyo cadaalad ku dhisan tahay waxa kale aan idin la dardaarmay aniga xaggayga dardaaranka wax walba oo shaqada qofka marka loo dhiibo waa maalintiisii maalinta waxa aad ku laabato shaqada ayuunba kugu qormay oo ka hadhay taariikha waxaan soo dhaweynayaa isbedelka ballaaran ee madaxweynuhu ku sameeyay xukuumaddiisa habeenkii xalay mas'uuliyadda madaxweynaha ayay ka mid tahay inuu xukuumadda kala bedelo cid magacaabo cidna xil ka qaado cidna u dhiibo shaqadiisii uu qabsaday shaqada uu qabsadayna waanu ku hambalyeynaynaa waana ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay qolyihii hore ee la bedelay intii aad qaranka usoo shaqayseen waa ku mahadsantihiin qolyaha cusub ee la magacaabayna waxaanu leenahay xilka aad qabateen Allah idin fududeeyo mas'uuliyad qaran baad qabateen mas'uuliyadda qarankuna way culus tahay ilaahay idinku asturo annaguna waan idinla shaqeynaa insha Allah dhibanaya isbedelkii lagu sameeyay xalayto qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xilalka sare ka haya dawladda markan horta si guud ahaan u hadlo isbedelka caam ahaan markan ka hadlo horta wax la taaban karo ugu muhiimsan waxa weeye gobollada bariga oo loo magacaabo waliba beesha Laascaanood oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha abaandulaha ciidanka iyo saddex loo magacaabay horta aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa beelaha barigu way cabanayeen in la soo dhaweeyo oo la soo dhaweeyo oo maamulka laga qayb geliyo oo wax loo baahan yahay waan ku hambaleynaynaa dawladda intaa waxay raaca marka saaxil soo noqday isbedelka saaxil ka dhacay marka ka soo bilaabay waxa ka hargeysa
horta wasiirka gobolka saaxil loo magac ka soo jeedo gobolka saaxil Cumar Shacayb waan hambalyeynaya dawladana way ku mahadsan tahay wasiirka labaad ee ay u magacawday gobolka Suudaan in yar milicsado isbedelkii golaha wasiirada ama xukuumadda lagu sameeyay xalayto saakana soo baxday runtii waan hambalyeynaya marka koowaad waxaan u arkaa inay tahay markii u horeysay si ballaaran oo isbedel ah oo Soomaaliland oo saameysay la sameeyay halka marka hore kana jirtay marar fara badan wax yar oo kooban waxa ka muuqata Soomaaliland labadii dhinacba oo geeska xagga galbeed iyo xagga bari oo markii hore marar fara badan gaar ahaan dhinaca barigu uu ka maqnaan jiray isbedelada faraha badan ee gobol ee lagu sameeyo xukuumadda aad baan u soo dhaweynayaa muxuu ahaa xeelka cusub ee loo magacaabay gobolada bariga oo Soomaaliland ah oo runtii ka maqnaa xukuumadda in badan ka maqnaa waxaan kaloo soo dhaweynayaa wada hadalka imika la bilaayay xukuumadda la furtay Cali Khalif Galeyd oo runtii marar badan aan lahada saaxiibkiisa ka horeeyay Professor Ahmed Ismail Samatar oo ka daahay inuu ku daydo ayuu maanta u noqotay sharaf iyo karaamo inuu ku daydo uu soo gaaray waan soo dhaweynaynaa talaabada caynkaas waxaan leenahay oo xukuumadda ku booreyna in wax qabad iyo hageedis qaranku sameeyay booliis wasiirada iyaga sameeyaashii taliyaasha ciidamada qaranka runtii waa ku halbalyeynaya waayo xilku waa wareegto oo waxa weeye ka qaadistu waxa weeye sunno ka mid ah qaranka qaranka afka dhalinyarada jamacadda badda ka qaranka aad u hambalyeynaya macallinkayga hore cabdi xirsi ducaale sarreeyagaas cabdi xirsi ducaale oo laga dhigay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay munaasabad si heersare loo soo agaasimay saaka waxa ka qabsantay hoolka dugsiga sare ama secondary school munaasabadan oo ay ka soo galeen maamulka barashada ee degmada Garadag waayeelka waxgaradka cuqaasha culimada iyo macallimiinta ardayda iyo maamulka degmada Garadag munaasabadan ujeedkeedu ahaa mid loogu hambalyeynaya ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ee gobolka Sanaag kuwaas oo wax ka barta dugsiga sare ama secondary school iyo dugsiga hoose dhexe ee Gumburi school isla markaana ahaa ardaydii ugu sareysay gobolka Sanaag horeyna waxa munaasabadan warbixin kooban ka bixiyay maamulaha dugsiga sare ama secondary school Muuse Siciid ayaale hadaladiisina waxa kamid ahaa sida tan saynu ka wada warqabno waxaynu ognahay in lagu dhawaaqay imtixaanadii shahaadiga ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland imtixaanka shahaadiga saynu wada ogsoonahay waxa tartamayay degmooyinka gobolada dalka oo dhan inagu waxaan ka tirsanahay gobol Sanaag gar adag secondary gobol Sanaag waxaynu galay kaalinta koobaad iyo haddii ay tahay secondary labadaba cid inaga iska horeysa gobolka ma jirto taana waxaan u arkaa guul hor leh sidoo kale iyaguna waxa halka ka hadlay oo ka warbixiyay ardaydan kaalmaha hore ka gashay imtixaankii shahaadiga ahaa ee iyadu wax ka bartay dugsiga sare ama secondary school ee degmada Garadag iyo dugsiga hoose dhexe Gumburi school maamulaha waxbarashada ee degmada Garadag Cabdi Mire iyo qaar kamid ah waayeelka iyo waxgaradka degmada Garadag hadaladoodina waxa kamid ahaa sida tan kaalinta koobaad ba hadda bayno waxaynu ku mitiraynaa kaalinta koobaad ee dalka waarbays maqalay foofoorkaas iyagu tag laakiin foofoorka hadda ku jiray iyagu ka dambeeyaba balanteenu waxa weeye waxaynu maqalnaa oo Nuuraddiin Hargeysa lambar 1 ka qaatay iyo maxaa ku raada yeeles baa lambar 1 ka qaatay iyo wixii hadda ka dambeeya waxaynu u guntanaynaa lambar 1 ka sideen u heli lahayn soo dhawaadaan idin leenahay waxbarashada dambena sidaas oo kale Ilaahay idinku guuleeyaan leenahay sidaas oo kale Ilaahay idinku guuleeyo waxaanu idin leenahay kuwa dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba anfaca Ilaahay idinka dhigo kuwa iyaguna sidaas oo kale waxbarashada iyaguna uga abaalguda inta ka dambaysa iyagu ay aqoonta u noqon doonaan kuwa iyaguna ka abaalguda oo saas oo kale u celiya insha Allah taana way idin rajaynaynaa ina idinla dadaalka sameeysan tiina waxbarashada akor u sii qaadaan waxaan balyeeynaa kuwa dadana waxaan leenahay ku dayda waana idinku ducaynaynaa inaad keentaan guusha maanta guul ka sii sarreysa oo tanu gobolka yahaydeen ilaa heer qaran ka gaadhaan ayaan ilaahay idinka annagu ilaahay baan idinka baryaynaa dadaalkana idinka iyo macallimiintiinna leh ilaahay inuu idinku guuleeyana waan ka baryaynaa
gunti iyo gabagabadina waxaa munaasabadan soo afmeeray maayirka degmada Garada Mudane Faarax Aadan Ciise oo ugu hambaliyay ardayda reer Garada guusha taariikhiga ay soo hooyeen maadaama ay iyagu nasiib u heleen in ay toddobadii arday ugu sareeyay gobolka Sanaag ay ka soo baxaan dugsiga sare ee ama secondary school halka ardayga ugu sareeyay gobolka Sanaag dugsiyada dhexe uu ka soo baxo dugsiga hoose dhexe ee Gumburi School ee degmada Garada isagoo arintaas ka hadlay hadalkiisa waxa kamid ahaa sidatan waa tusaale fiican runtii oo ku dayasho mooyaan sida uu sheegay Axmed waa runoo trip sanadkii hore halkan waanu qabanay xafladaas halkan baanu sugu nimi saasay ahayd ballankii way oofiyay ragaas iyo hablahaas wadee fasalkaas ballankii way oofiyay qolada dambe imka foonfoor ku jirta nimay ku hadhay hawlaaysa soo lama oran jirin iyaga waxa laga rabaa ilaa inay dawaynay aan ceergaabo ku xisaabtamin iyo gobol Sanaag ku xisaabtamin waa inay qaran ku xisaabtamaan waadna gaaraysan waxa la yiri maama jirtay wax la yada haddaad ku riyoodo if you dream you can do it haddaad waxa ku riyooto waad qaban kartaa haddaad ku riyootaan inaad sanadka dambe inaad tan toobka ka qayb gashaan Soomaaliland waad gaari kartaa waayo resource-kii baad haysataan maxaabiistii ugu badnayd ayaa laga sii daayay xabsiga Guantanamo ee dalka Mareykanka intii madaxweyne Obama talada dalkaasi hayay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in 15 qof oo lagu hayay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba loo wareejiyay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta warbaahinta Mareykanka ayaa sidoo kale ku waramaysa in 12 maxbuus oo kamid ah dadkaasi ay u dhasheen dalka Yemen sidoo kalena ay jiraan kuwa u dhashay dalka Afghanistan waana tiradii ugu badnayd ee maxaabiis ah ee la wareejiyo intii uu xilka madaxtinimada Mareykanka hayay madaxweyne Obama sidoo kalena madaxweyne Obama ayaa isagoo hore u sheegay inuu albaabada u laabi doono xabsigaasi Guantanamo. Guantanamo is not necessary to keep America safe. It is expensive. It is inefficient. akhyaarteeda qiimaha qadarinta qaayaha sharafta iyo karaamada laga mudan ee hawada sida tooska nogala socdo waqti xaadirka waxaanu intaas ku soo gabagabaynaynaa waxaan idinka haynay dalka gudihiisa iyo dacallada caalamka oo dabcan idinka imanaya xarunta muqbaahiyaha taariikhda fog ee Space Channel TV oo ku leeyahay magaalada Hargeysa intaynu warka xiga dib ugu kulmayno aniga iyo asxaabtii kale igala qayb qaadatay tabinta soo saarista isku dubaridka habaynta farsamaynta iyo waliba baahinta warkuba waxaan idinku dhaafaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.